madaxda maamulada ayaa asbuucan sii daayay fariin bannaanka si dadban u dhigtay kaalintii ra'iisul wasaare Roble ee hoggaanka doorashada. qoraal wada jira oo ay soo saareen madaxda shanta maamul goboleed oo ay meel dhex uga istaageen xiisadda farmaajo iyo Roble ayay ku sheegeen inay garow ku yeelan doonaan shir ay uga arrinsanayaan arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda dalka. arrintan ayaa la sheegay inay madmadow kala dhex dhigtay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda maamulada. hogaamiyaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo sidoo kale ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ee sanadkan ayaa culeys badan kala kulmaya martigelinta kulankan. waxaa jira warar sheegaya inuu la hadlay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble uuna u cadeeyay inaanay iyagu ka wada hadli doonin arrimo quseeya doorashooyinka. sidoo kale wasiir ka tirsan maamulka Puntland ayaa saxaafadda u sheegay in wixii doorasho ah ay ra'iisul wasaaraha u dhaafayaan, laakiin taasi waa dabooli la'dahay wixii shanta maamul goboleed warqadda ku soo wada qoreen oo ahayd inay arrimaha doorashada uga hadlayaan shir uu ka maqan yahay ra'iisul wasaarihii dalka oo isagu mar hore lagu wareejiyay maamulkii doorashada. shanta maamul goboleed iyo shir doorashada federaalka ah ee lagu maamuli doono dowladda dhexe inay gooni uga wada hadli karaan shanta maamul goboleed dastuurkana kuma taalo, heshiis doorasho iyo xeer kale oo dalku leeyahayna kuma qorna. qodobka 51 iyo midka 52 ee dastuurka dalku waxay si aan qoto dheereen u tilmaamayaan inay maamuladu yeeshaan iskaashiyo lagu hormarinayo baahiyaha ka jira deegaanadooda iyo wax wada qabsi, laakiin ma jirto wax u fududaynaya inay gooni uga shiraan doorasho federaal ah. maadaama kuraasta reer waqooyiga, kuwa banaadiriga iyo hay'adihii fulinta doorashaduba aanay miiska joogin, ma jirto dariiq ay doorasho ku jeexjeexi karaan madaxda shanta maamul goboleed, waxaana shirkoodu uu noqday mid siyaasadeed oo ku soo aaday xilli xasaasi ah. markii indhaha siyaasadda lagu eego, wuxuu shirka madaxda maamuladu adeecayaa warqaddii uu dhowaan soo saaray farmaajo ee uu ku sheegay inuu ku dhimay awoodihii ra'iisul wasaare Roble. sababta waa inay iyaguna degdeg u dhimeen doorkii hogaamineed ee ra'iisul wasaaraha ee xilliga kala guurka ah. Roble waxaa la sheegay inuu si weyn u dhibsaday shirkaas iyo sidii uu u dhignaa bayaankii ka soo baxay madaxda shanta maamul goboleed. haddaba ma qabsoomi doonaa shirkan? waxaa jira warar sheegaya inay socdaan dadaalo lagu baajinayo kulanka ay ku ballameen madaxda shanta maamul goboleed, maadaama uu dirayo fariin siyaasadeed oo weyn oo ah inay maamuladu qafaasheen mashruucii doorashada iyo awooddii hogaamineed ee ra'iisul wasaaraha ee xilliga kala guurka ah. maamulada qaar ayaa la sheegay inay diidan yihiin in shirka la baajiyo. haddii ay ku adkaystaan inuu kulanku dhaco oo qodobada shirka iyo aragtida laga qaataba ay sii fogayso ra'iisul wasaare Roble, waxaa macquul ah inuu Roble qaato aragti kale oo dib ula midayn karta farmaajo, maadaama ay muuqato inay maamuladii ku samaynayaan dhabarjabin siyaasadeed. maxay kula taadiga?